يا mahadsanid maxamed cabdisalaan mid ka mid ah aqoon-yahanada muqdisho ayaa ka hadlay maqnaashiyaha maqaamka gobolka banaadir waxauna baaq u jeediyey madaxda dowladda siday warkani ku dhammaystirayso aamine cadow goore nuur ismaaciil shiikh oo ka mid ah aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta magaalada muqdisho oo wareysi siiyey idaacadda kulmiye ayaa ka hadlay maqnaashaha maqaamka shacabka ku nool gobolka banaadir nuur ismaaciil ayaa sheegay in muqdisho ay ku nool yihiin in ka badan 3 milyan oo qof oo bixiya canshuurta dowladda islamarkaana aysan haysan xuquuqdii ay ku lahaayeen waxauna sheegay in aysan adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo matalaadda siyaasadeed aysan haysan ee magaalada muqdisho waxauna madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ka dalbaday in la cadeeyo xuquuqda siyaasadeed ee dalka ku nool gobolka banaadir arinta maqaamka muqdisho waa arin loo baahan yahay in shacabka muqdisho ay ka tashadaan muqdisho waxa ku nool sida wada ogsoonahay gobolka banaadir 3 milyan ka badan oo qofood 3 milyan ma laha waxa xuquuqa canshuurta dowladda waxay ka timaadaa magaalada muqdisho gobolka banaadir ka timaadaa 3 milyan waxa xuquuqa ma lahan goobo caafimaad oo bilaash ma lahan goobo waxbarasho bilaash ma lahan maanta waxa loo baahan yahay shacabka muqdisho gaar ahaan dadka odayaasha dhaqanka iyo dadka xildhibaanada ka soo jeeda gobolka banaadir iyo siyaasiyiintaba in ay u tashtaan oo arintaasi si gaar ah loogu fariisto 3 milyan in ka badan oo xuquuq la'aan ah madaxda dowladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowr jeer hadallo ay jeediyeen waxa ay ballan qaadeen inay heli doonaan shacabka maqaamka Muqdisho matalaadooda siyaasadeed mana jirto ilaa hadda dadaalo socda oo arintaasi ku saabsan hadalka Nuur Ismaaciil Shiikh oo kamid ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay shaacisay in 3 bilood ee la soo dhaafay canshuurta gobolka Banaadir laga aruuriyay in ka badan 42 milyan oo dollar mahadsanid aamine cadow gure kulan looga hadlayo amniga degmada Ceelwaaq una dhaxeeya maamulka degmada iyo saraakiisha ammaanka ayaa ka socda gudaha degmadaasi Axmed Khaliif oo ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya ee